waxaa noo soo dhammaaday arkaantii iyo tafaasiishii laga bixinayo. waxaa noo soo dhammaaday arkaantii iyo tafaasiishii laga bixinayay. waxaan halkan ka gelaynaa waxyaabaha sunanta ah ee waajibka ah in qofka marka uu dukanayo haddii ay ku dhacaan laga rabo inuu la imaado salaadiis si ay u kabanto. sintacsiga qofka maskaxdiisu way maqnaanay. qofka marka wax dhegeysana waxaa la rabaa inuusan meelna ku sitacsanin, haddii kale waa hurdoona. asbaabu sujuudi sahwi arbacatun faslun haadaa faasilankii wax kala saara waay. asbaabu sujuudi sahwi sababaha sujuudu sahwiga keena arbacatun afar waay. sababaha qofka inuu sujuudu sahwi la imaado keeni karaahi waa afar mid ka mid ah. al awalu midka koobaad tarku bacdin qayb in laga tago oo min abcaadi salaati qaybaha salaada ka mid a. waxyaaba waxaa jira salaada ka mid oo abcaad la yidhaahdo. abcaad bar waay, salaadii ayay bar ka yihiin. tarku bacdin bar in laga tago oo min abcaadi salaati salaada bararkeeda ka mid a. salaada bararkeeda isagaa noo keeni doona, fasalkan kan ku xigaana bari doona. ow amase bacdulbacdi qaarkii qaarkiisa in laga sii tago. qaarkiisii in laga sii tago. qaarkii in laga tago qaarkiisana laga sii tago. sujuudu sahwigu waa sunno oo shay waajiba dartiis oo laga tego looma sunnaynina. waxaa loo sunnaynayaa waxyaaba sunnooyin ah oo laga tegay darteeda loo sunnaynayaa si ay u kabaan. cabdullaahi binu buxayna ninka la yidhaha oo saxaabi ahaa, allah ka raali noqday, wuxuu yidhi waxaana dujiyey buu yidhi rasuulka ilaahay baa wuxuuna dujiyey ragcatayni min bacdi salawaat, 2 ragcadood oo salaadaha qaar ka mid ah. markaas buu istaagay, falam yejlis ma uusan fadhiisanin, faqaama annaasu macahu dadkiina way la istaageen. falamaa qadaa salaatahu salaadiisa markuu dhammaystay oo wanadarnaa aan sugaynay tasliimahu inuu salaamo naqsado, kabara wuu takbiirsaday, allahu akbar buu yidhi qabla tasliim salaamaysiga ka hor, intuusa salaamo naqsan ka hor. fasajada sajdatayn 2 sujuudood sujuuday, wahuwa jaalisun isagoo fadhiya, uma sallama wuu salaamo naqsada. markaas bukhaari xadiidka soo saara waxayna tusinaysaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu 2 ragcadood dujiyey oo salaadaha qaarkood ah, kadibna uu istaagay isagoon fadhiisanin oo taxyaadin. dadkiina way la istaageen. salaadii markuu dhammaystay oon salaamtiisa sugaynay, allahu akbar buu yidhi, 2 sujuudooduu sujuuday, markaas kadib uu salaamo naqsado. maxay tusinaysaa marka in haddii laga tago ataxiyaadka koowaad haddii laga tago sujuudu sahwi lagu kabaayo. athaani midka labaad ficlu maa shay samayntiisa waaye. ficlu maa shay samayntiisa yubdilu uu burinayo camduhu kaskiisa. markaad u qasadidood kas u samaysid salaadu way kaa buraysaa. walaa yubdilu laakiin ma burinayso sahwigu markii la hilmaamo, idaa goortii facalahu qofku musalliga uu sameeyo naasiyan isagoo hilmaansan. shay markii adoo og oo kasaad u samaysid, kas markaad u samaysid wuu kaa burinayaa salaada. laakiin hilmaan haddaa u samaysid salaaddii kaa buri mayso. tusaale ahaan waxaa istiri fadhigii sujuuddii adoo maraya eed waxaa istiri tolow ma sujuud, fadhigaan inta fadhiisata ma sujuudo, inaad sujuud labaad siyaadisid. ama rukuucdii markaad ictidaashay oo taagantahay waxaa istiri ma rukuucdo, rukuuc kalaa la timid. haddaad 2 rukuuc la timaadid salaadaada waa bure. haddaad 2 fadhi oo sujuud la timaadid salaadaadi waa bure, kas haddaa u samaysid. haddaad laakiin hilmaantid ood samaysid, rukuucdii ma aadan samaynina rukuuc baa tiri, waad rukuucdo mar kale, 2 jeeraad rukuucdo marka. sahwi hilmaan baad u samaysa, salaaddii kaa buri mayso. laakiin maadaama 2 jeer aad ku laabatay ood adigu hilmaankii dartiis aad u samaysay,
kaa buri mayso salaadii. waxaana lagaa rabaa sujuudu sahwi inaad ku kabtid ama ragcad kalead ziyaadisay. waxaa istiri talow ragcaddaani ma tii kugu dambaysayba mase mid baa kuu dhiman. middii kugu dambaysay inaan la gaarin aad ka soo qaadaysaa, markaasaad la imaanaya ragcaddaasi ogaal haddaa u samaysid salaadaada waa bure. salaaddu waxay aad matalan ka soo qaad 3 leeyeed ama 4 reebeed. ragcaddii u dambaysay markii lagu daro mid kale haddaad ku dartid si kas ah, salaaddii waa kaa bure. si hilmaan haddaa ugu samaysidna kaa buri mayso. marka intaasoo dhan waa tusaalaha ficlu maa yuqdilu camdu. shay markii la sameeyo kas ahaan loo sameeyane uu burinayo salaaddii. walaa yuqdilu sahwu, hilmaankiisuna uusan burinaynin idaa facalahu markuu sameeyo naasiyan isagoo hilmaansan. in rukuuc la ziyaadiyo, in sujuud labaad la ziyaadiyo, in sujuud saddexaad la ziyaadiyo aan dhehe, in la ziyaadiyo rukuuc labaad, ragcad ziyaada in la keeno. intaasoo dhan waa tusaalaha. athaalithu midka saddexaad naqlu ruknin qawliyin. naqlu ruknin rukni in la raro. rukni baad rartay. naqlu ruknin rukni inaad rartid qawliyin oo hadal ah ilaa gayri maxallihi booskiisa meelaan ahayn. arkaanta aan soo qaadanay waxaa loo qaybiyaa 2 qayb. mid waa qawli, afkaa laga sheegaa. midna waa ficli, waa la sameeyaa. rukuucdu waa ficil, ictidaalku waa ficil, sujuuddu waa ficil, fadhigu waa ficil, sujuudda kale waa ficil. intaasoo dhan waa ficil. maxaa soo haray? istaagga laftirkiisu waa ficil, laakiin faatixada akhrinteeda rukni bay ahayd soo maa. rukni qawlihaa la yidhaahdaa faatixada in la akhriyo. faatixada akhrinteedu waa rukni qawli ah. ataxiyaadka dambe akhrintiisu waa rukni qawli ah. salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ataxiyaadka dambe ku jira waa rukni qawli ah. arkaantaas qawliga inaad guurisid adoo taagan meeshii la rabay faatixa inaad akhrisid. ataxiyaad haddaad daldashid sujuudu sahwi aad ku kabe adoo taaganaad ataxiyaadda. adoo fadhiya ayaad faatixa akhris. adoo fadhis ayaad faatixa akhris ama wax kale qur-aan ba akhris. marka rukniga qawliga booskiisa markii laga qaado meelaan ahayn lagu akhriyo sujuudu sahwiyaa lagu kabaa. naqlu ruknin rukni in la raro qawliyin oo qowl ah. rukniga qawliga waan sheegnay, waxaan dhahnay ataxiyaadka u dambeeya, faatixada, salliga u dambeeya, ataxiyaadka u dambeeya ku jira. kuwaasoo dhan maxay yihiin? waa rukni qawliga. ilaa gayri maxallihi booskiisa meelaan ahaynna loo geeyo. ilaa gayri maxallihi booskiisa meelaan ahayn. arraabicu midka afaraad iqaacu ruknin ficliyin rukni ficliya in la rido. iqaacu riditaanka rukni ficliyin rukn ficil ah maca ixtimaali ziyaada. maca ixtimaali isagoo aqbali kara. maca ixtimaali isagoo aqbali kara aziyaada kordhin. ficilkaani in la ziyaadiyo isagoo aqbali kara. wataan hadda sheegaynayo rukni ficli ah inaad 2 jeer soo celiso wuxuu u dhow yahay shardiga labaad ama sababta labaad iyo kan uu isku dhow yahay. iqaacu ruknin ficliyin rukn ficli in la rido maca ixtimaali ziyaada isagoo suurtagal tahay in uu dheeraad yahay. iyadoo suurtagal tahay inuu dheeraad yahay. tusaale ahaan qofkaani wuxuu ku shakiyey inuu rukuucay inuusan rukuucin. uu rukuuca rukuucdii buu ku laabanaya. sujuuddii buu ku shakiyey wuu sujuuda. in la rido marka rukunkaas inuu dhacay sunno sujuudu sahwi ayaa loo sunnaynaya qof. waaya ilaa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisi muxuu ahaa? abi saciid alkhudri oo warinaya wuxuu yidhi nabigu idaa shaka axadukum fii salaatihi falam yadri kam sallaa 3 ama 4 falyadrax ishaka walyabni calaa mastayqana oo kama qaal. macnaha midkiin hadduu ku shakiyo salaadiis, hadduu ku shakiyo uusan ogaanin waxa uu dukaday, ma 4 buu dukaday ma 3 buu dukaday, shakiga ha iska tuuro. shakiga iska tuur. waxaadna ku dhistaa waxaa yaqiintaad hubtid. kadib 2 sujuudood la imaw intaadan salaamo naqsan ka hor. haddii marka 5 aad dukatid
oo salaadaada 4 oo dukatay 5 aad ka dhigtid markaas shafaaca ayay kuu noqonaysaa. haddii 4tii aad dhammaystirtayna shaydaanka ayay waxay u tahay sanka carrayn, shaydaanka ayay sanka ka carraynaysaa. waay faslun haadaa faasilunkii wax kala saaraya way abcaadu salaati salaada bararkeedu 7 waa salaada barkeeda waxyaabaha salaada qaar bar ayay u yihiin la yiraahdo waa 7. التشهد التحيات الأول ee koobaad التحيات koobaad waxa la yiraahdaa waa bar ayuu salaada u yahay. xadiidkii aan soo marnay hadda Abdullah ibn Buhayna ayaa daliil u ah. wa qucuuduhu التحياتkaas fadhigiisa haddii laga tago ama isagiiba laga tago. wasalaatu cala nabiga lagu saliyo fiihi التحياتka koobaad in nabiga lagu saliyo. wasalaatu saliyad cala alaali aalka lagu saliyo fi tashahudi ataxiyaadka alakhiir ee u dambeeya. iyo walqunuutu qunuudkii oo salaada subax qunuudka salaada subax iyo watarka niska dambe ee ramadaanka waa sunno nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay axaadiis badan ay ku imaadeen. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey maxamed binu siriin na oo wariyey qaala su'ila anas baa la weydiiyey buu yidhi aqanata nabiyu sala allahu calayhi wasalam fi subxi nabigu ma qunuuday salaada subax. markaasuu wuxuu yidhi anas nacam haa. faqiila lahu waxaa loo yidhi awaqanata qabla rukuuci rukuucda ka hor muu qunuuday. qaala wuxuu yidhi bacda rukuuci yasiiran rukuucda kadib ayuu qunuuday wax yar kadib. bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaas soo saaray. wuxuu tusinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu qunuudi jiray salaada subax ayuu sugaya bacda rukuuc. xaakim wuxuu sanad saxiixa ku wariyey kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam yaqnutu fi salaati alfajri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa midkii qunuuda salaatu fajrka. xadiidka anas laakiin oo dhahaya nimankaana ay la orordaan ana nabiy sala allahu alayhi wasalam qanata shahran laba bidcada waxaa xadiidka ay qunuudka ku diidaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam shahran ayuu qunuuday bacda rukuuci rukuucda kadib. yadcuu calaa axyaa'in yadcuu isagoo habaaraya calaa axyaa'in xaafado oo min bani sulaymin reer bani sulaym ka mid ah nimankii dilay dadkii quraa'da ahaa asxaabtii quraa'da ahaa nimankii dilay ayuu inkaari jiray. bil buu qunuudayay marka nimankii markii la dilay kadib uma taraka uu iska dhaafay. bukhaari iyo muslim baa wariyey. meeshaas marka waxaa ku jirta uma taraka wuu iska dhaafay. iyagu waxay u qaateen uma taraka qunuudkiibuu iska dhaafay mana ahane wuxuu iska dhaafay waxay tahay uma taraka habaarkii nimankaas uu habaari jiray ayuu iska dhaafay. xaafidulbayhaqi ayaa sunantiisa kitaabkiisa fi sunani lkubraa wuxuu ku warinayaa can xaafid bin cabdiraxmaan bin muhdi bisanad saxiix annahu qaala inamaa taraka sala allahu calayhi wasalam allacnata faqat cala alkufaari laa asla alqunuut. wuxuu leeyahay xaafidkaasi cabdiraxmaan binu mahdi la yidhaah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka tegey keliya inkaarkii uu inkaaraya ka tegey maan gaaladee ee asalkii qunuud kama uusan tegin. shawkaani wuxuu leeyahay kitaabkiisa naylul awdaarka waxtaja bi haada alxadiidi xadiidkan waxaa soo xujaysan kara man ahbata dadkii sugay ayaa xujaystay alqunuuta qunuudka fi subxi salaada subax in la qunuuda. imaamu thawri iyo ibnu xasmi waxay leeyihiin kullu min alficli wa tarki xasanun mid kastoo ka mid a in la sameeyo in laga tagaa waa wax fiican. ay laysa min alarkaani salaati waayo salaada arkaanteeda ka mid maaha. haddaad samaysid iyo haddaadan samaynin waajib kama aadan tegin rugni kama aadan tegin salaadaadina saxiix waa laakiin shay sunnaad ka tagta. anas waxaa laga wariyey isna sidoo kale inuu yidhi maa zaala rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam yaqnutu xataa faaraqa addunya. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa midaan ka zuulin inuu qunuudayo xataa adduunka uu ka tegey ilaa uu ka geeriyoodo. xadiidkaas imaamu axmed baa soo saaray. bayhaqina sanad saxiixu ku soo saaray. imaamu nawowina wuu saxiix yeelay kitaabkiisa majmuuca. alxaazimina wuxuu ka sheegaa dad badan oo asxaabta ka mid a iyo taabiciinta in badan oo ka mid a. marka imaamu nawowi wuxuu ku yidhi kitaabkiisa sharxulmuhadabka alqunuutu fi subxi madhabuna salaada subax in la qunuuda waa madhabkeena madhabka imaam shaafici waa.
isaga sidaasna waxaa yidhi in badan oo ka mid dadka ahlu salafka ahaa iyo dad badan oo ka dambeeya. ibnulqayim wuxuu ku sheegay kitaabkii zaadulmacaadka la yidhaah axaadiid badan oo qunuudka ku sugan dhammaanteed waa saxiix, qaarkoodna qaarka kale ayay xoojinayaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam marka qunuudka in uu jiro axaadiidtaas ayaa tusinaya. waxaa kaloo ku sugan ducooyin lagu ducaysanaya qunuudka. maxaa la aqrinaya? allahuma hadinii fi man hadayta wacaafinii fi man caafayta watawallanii fi man tawallayta wabaarik lii fi ma acطayta waqinii shara ma qadayta. ducadaasuu qofku akrinaya markuu keligiisi. hadduu jamc yahayna dadka ku darayaa allahuma hadinaa fi man hadayta uley. waaya iyo ducooyin kaloo kusoo aroora inta way jiraan. wasalaatu salaadii iyo wasalaamu salaamtii cala nabiyi nebiga la salaamo iyo wa aalihi aalkiisa fiihi fi tashahudi alakhiiri ataxiyaadka dambe. fiihi fi lqunuuti andhahe fiihi fi lqunuuti. wasalaatu saliyid iyo wasalaamu nabadgelyo in la salaamo cala nabiyi nebiga la salaamo wa aalihi aalkiisa la salaamo la salaado fiihi fi lqunuuti qunuudka dhexdiisa. qunuudka dhexdiisa in la yidhaahdo wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam in la dhaho. taas ayuu kusoo saarayaa imaamu nawowi ee kitaabkiisa majmuuca sanad saxiixa. waayahay salaadii marka waxyaabihii sunantooda ahayo waxaan soo qaadanay. salaada tiirarkeeda waa soo qaadanay, shuruuddeeda waa soo qaadanay, sunanteedina waa soo qaadanay. wuxuu halkaan nooga sheegayaa maxaa salaaddii naga buri kara. salaada maxaa buriye? tabdulu salaatu salaadu way burtaa b14 khislatan 14 xaalo ayay salaadu ku buri kartaa. b14 khaslatan 14 xaaladood hadday dhacdo way buraysaa. bilxadathi bisababilxadathi xadadkii sababtiisa ayay ku buraysaa. xadadkii asqar ha noqdo ama akbar ha noqde salaadii way buraysaa. bilxadathi bay ku burtaa, xadadkii bay ku burtaa. waaya wa biwuquuci nijaasati nijaas ku dhiciddeeda in lam tulqa haddaan la tuurin xaalan si deg deg ah min gayri xamlin iyadoon la qaadin. wa biwuquuci najaasati najaas inay ku dhacdo in lam tulqa haddaan la tuurin xaalan isla markiiba min gayri xamlin qaadis la-aanteed. nijaas baa kugu soo dhacday haddaan isla markii ganin oodan tuurin, salaadaadi way buraysaa. maxaa la rabaa marka? waxaa la yidhi waa inaan la qaadinaa la yidhi qaadis la-aan. haddaa qaadid nijaastii kugu soo dhacda aad gacanta ku qaadid gacantaadii ayaaba nijaasowdaba. mid waa la samayn karaa in shayga la jafo iyo in farganid lagu sameeyo, labadaasba waa lagu tuuri karaa. najaas markay kusoo dhacdo waa noocaas. wa biwuquuci najaasati najaas ku dhiciddeeda in lam tulqa haddaan la tuurin xaalan si deg deg haddaan loo tuurin min gayri xamlin iyadoon la qaadayn. waay wankishaaful cawrati cawradii oo faydanta, cawradii inay faydanto in lam tustar haddaan la asturin xaalan si deg deg ah. dabayl baa timid maradii bay kaa tuurta, waad sujuudsanayd, funaanadii ama shaatigii hal mar ay soo tuurta ama garbasaarkii bay tuurta. dhibka uu leeyahay macnaha garbasaar keligiis shaat saako ama dirac gacmo dheer aan lagu dukanin waa dhibka ay leedahay. meeshaas dhib kaloo jira waxay tahay wiilasha waxay sameeyaan maalmahan waxaa lasoo qaadanaa funaanad aad u yar oo laga yaabo markuu rukuuco ama markuu sujuudo inay gadaal dhan ka soo qaadanto oo ay banaanaato simihiisa qaybtiisa dambe. habar tukatay waa habar tukatay dadkaan iraahna waa macnaha salaad uma jirtaa laga wada habar tukatay haddaa maqashid yaa habar lagu caayo maayo. waay ila faatixadii shidadkeedii iyo midkeedii waxba ma taqaano marka sidaa salaadba uma jirtaba. sheekha hadda kahor waxaa loo keenay
wadaada waxaa la yidhi wuxuu islaana wuxuu ku furay 3 dalaaqoo ku fura. culummadii kaleo dhanaa loo tegay la yidhi muxuu ahaa naagta waa kaa furan tahay iska tir. sheekhaa loo sheegay markaasaa la yidhi sheekhu ninkaas xaaska saas kala tageen saasaa dhacday. markaasuu yidhi islaanta igu waca haye salaadda ma dukataa? haa. maxaa ku dukataa? faatixada bal akri. faatixadii waxay ka dhigtay mid jaba iyo mid jiisa. war ma dukatide naagtaana ma dukatee salaada orod barow yidhi kama furne. waay marka salaad haddaad dukatid shardiga macnaha furitaanka wuxuu ahaa haddaad dukatid 3 ku furanta. meesha maxaa kasoo baxa marka inaysanba dukan wax dalaaqa aysan dhicin. ila dukashada midii ilaahay uu aqoonsanaa oo raalliga ka ahaayo oo waxeeda shuruuddeeda arkaanteeda u dhammaystirantaaba. inkishaaful cawra marka dhibkeeday leedahay rag iyo dumarba. waay cawradii inay faydanto salaadda way ku buraysaa. in lam tustar haddaan la asturin xaalan si deg dega haddaan loo asturin. mid walba intii waajibka ahayd meel ka midahoo yar hadday faydanto oon isla markii la daboolin waa buraysaa salaaddii. waa nudqu ku dhawaaqid bixarfayni 2 xaraf lagu dhawaaqo ow amase xarfin 1 xaraf lagu dhawaaqo mufhimin oo macno keena camdan oo kasa. qofka inuu ku dhawaaqo 2 xaraf oo macno leh ama 1 xaraf oo macno 2 xaraf macnaha keenan yay keeni. 2 xaraf hadduu ku dhawaaqo qofku salaaddii way buraysaa oon salaaddii shaqo ku lahayn. ama 1 xaraf oo macno keena hadduu ku dhawaaqo. ila nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina haadihi salaati laa yasluxu fiiha shayun min kalaami annaas inamaa huwa atasbiixu waltakbiiru wa qiraa'atu lqur'aan. salaadan ma soo geli karo wax ka mid ah hadalka dadka keliya tasbiix takbiir iyo qur'aan akhrintiisa ay u suubanta. meeshaas marka hadalka dadka dhammaan wuxuu burinayaa salaaddii wuu burinayaa. hadduu qofka salaaddii qofka ku dhex hadlo 2 xarafna uu ku dhawaaqo way buraysaa. bal culummadu waxayba sheegaanba kutubada sharaaxduna ay qorayaan ee kitaabka sharaxa. tusaale ahaan markuu yidhaahdo qof hadduu yidhaahdo xarfaa dhawaaqaa soo ma tanaxnuxaasi way ku daraan inuu yahay waxyaabaha burinaya. qufaca oo qofku qufacayo qufac oo kas u yimid iyo qufac qofku iska raadiyo ayay u qaybsamaan. midka ka qaalib ka noqdo haddaan waxba laga fahmin waxba ka buri maayaan. laakiin midka iska raadiya haddii 1 xaraf oo wax fahansiinaya laga fahmo salaaddiisi way buraysaa. waaya marka waxyaabahaas oo dhan iska ilaalinay rabaan. tanaxnuxa ama inuu yidhaahdo qofka mar faataxadii in la akriyaa waajib ah dhuntiina waxbaa kaaga xiran ma akri kartid. ataxiyaadkii waa waajib in la akriyo waxbaa dhunti kaaga xirmay markaas haddaad tidhaahdid way bannaan tahay leeyihin. waayo shaygaas waajibka in lala imaado maahane salaaddii ma ansaxayso. si isagii loola imaado marka in la tanaxnaxo ama la yidhaahdo waa laga maarmaanay noqonaya. markaa hindhisyada qofku isaga ma keensado sooma. laakiin iyada laftirkeeda kutubada qaaraa ku daraya. kutubada mid ka mida oo qaayatulmuna la yidhaahdo oo sharxa kitaabkan aan ku arkay wuxuu leeyahay hindhisyada xataa way ku jirtaa waxyaabaha burinaya. waa ka darantahay ishaaraad bixiso ma hadlin. laakiin farjaawinta waa hadal
qofku inuu macnaha salaadii ka baxo marka uu taagan yahay maxaa la yidhi waquumuu lilaahi qaanitiina ilaahay u istaaga hortiisa istaaga idinkoo qunuudsan oo khushuucsan khushuuci marka inuu wax fiirfiiriyo ila qofkaani markuu saas leeyahay qofuu bannaankaa wax u sheegaa qofka bannaankaa markuu wax u sheegaan maxay tahay wuxuu arkay darteed keliya waxay dhici kartaa markii cunug ayaa dab ku sii dhacaya qof baa rabtaa marka cunuga dabka ka celiyo kale cunuga dabka ka celi markaa dad tiraadid salaaddii way bure maxaa kaloo la samayn karaa salaadiina in laga baxo lama ogola markaasoo kale inaad tiraahdid hal mar waa la ogol yahay laakiin dad ku celis 2 jeer waa xad ka baxa waa waay inahaasoo dhan marka waxa la wixii salaada aan xiriir la lahayn inuu qofka ilaalsado waa muhiim wa bilmufdiri inuu cuno shay wax afuriya camdan si kas ah shay wax afuriya inuu la imaado camdan si kas wal akli al kathiri cunitaan badan naasiyan isagoo hilmaan akli kathir iyo qaliil ma kala laha hadduuba qofku wax cunid sameeyo waa salaadiis way buraysaa hadalkii waxay salaadii tixdeedii iyo qaabkeedii dhanow meesha ka saaraya waayahay nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa cabdullaahi waxaa laga wariyey inuu yidhi kunnaa nusallimu cala nabi sala allahu aleyh wasalam wahuwa fi salaati fa yuraddu calayna nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan ahayn uu yidhi salaada isagoo ku jira ayaan salaami jirnay wuu naga radi jiray markii aan ka soo noqonnay najaashi oo halkaa aan u hijroonnay kadib ayaan soo laabannay waan salaannay nagama uusan radin wuxuu yidhi marka inna fi salaati shuqlan salaada waxaa ku jira hawl baa ku jirta salaada hawshaas oon hawl kale loo daynaynin haddii mar salaada la galo wax kaloo dhan lama ogolo waayahay in wax la cunana salaadii way burinaysaa wa 3 xarakaatin 3 dhaqaaq mutawaaliyaatin oo xiriirta walow sahwan halmaan baa Allah ka dhigay 3 dhaqaaq inuu qofkii sameeyo dhinacuu rabaa ka sameeyo 3 dhaqaaq oo mutawaaliyaatin xiriira saan uu yiri madaxu xogtay waa ku celiyey wadana meel kale uu xogtay 3 jeer dhaqaaq ah uu sameeyay Allah u naxariisto salaadiisi waa ku daysay walow sahwan baa Allah ka dhigay dhaqdhaqaaq inuu sameeyo waa salaada way ka reebanta 3 xarakaatin 3 dhaqaaq oo sharci ahaan loo yaqaano waa camal iyo hawl badan oo nidaamkii salaada bedelaya laga wada wax salaada habkeedii iyo dhaqaaqeedii bedelaya iyo khushuuceedii inuu bedelayo ila ilaahay wuxuu yiri quumu lilaahi qaanitiin salaada khushuuceeda inuu ilaaliyo xadiiskii nabiguna wuxuu ahaa qofkiin salaada uu dukanayo waxba ugama sugnaanin ilaa ma aqala wixii uu garto oo isagu uu jooga maahane waxa kale ajirkeedii meelay tawaabkeedii uu dhaafaya in alla intuu qalbigiisa soo xaadiriyo qofku leeyahay marka dhaqdhaqaaq hadduu sameeyo waa u dhamaata dana waxaa la rabaa inuu dareemo haybadda allaha uu hortaagan yahay inuu dareemo haddii aadan adiga arkaynin isagaa ku arkaya xadiidkii waa kii ah walwathbatu booditaan ayaa salaadii burinaysa alfaaxishatu ee foolxun booditaan inuu sameeyo qofkii uu booday booditaan intuu boodo hadduu qofkii boodo uu boodid sameeyo salaadiisi way buraysaa waay walwathbatu booditaan ba burinaysa alfaaxishati ee xun waayo waxay aad u burinaysaa nidaamkii salaada ayayba ka fogtaaba mashquulkii salaadana wuu ka baxayaa qofka wadarbatu garaacis ayaa lamid ah almufridatu xaddaafa waldarbatu garaacis almufridatu ee xaddaafa tusaale ahaan qofka hortiisa ayuu macnaha rabaa inuu boorka ka jafo markaan saas yiri dhawaq la maqli karo garaacis samaynaysa daasaa tiraahday tartiib au masaxdid darba ma ah laakiin inuu garaacis ku sameeyo
waa salaadii qaabkeedii anfinaysaa ilaalintii salaadana meeshay ka baxe wa ziyaadati rukni in la kordhiyo ruknigaasoo ficliyin fala camdan kasna loo kordhiyo salaadii rukni arkaanta ficliga ah rukuucdii ka bilow ictidaalkii ku xiji sujuuddii fadhigii sujuuddii labaad kuwaas inuu 2 jeer sameeyo uu kordhiyo rukni kale uu ku daro 2 rukuuc 2 ictidaal 2 sujuud 2 fadhi inuu la imaado mid uun ka mid a salaadiis way ku buraysaa wataqadumu sidoo kale waxaa burinaya salaadii wataqadumu hormarid calaa imaamihi imaamkiisa inuu ka hormaro biruknayni 2 rukni ficlayayni oo 2 ficil ah qofkii inuu ka daba maro ka hormaro imaamka inuu ka hormaro 2 qowl ama 2 arrin oo ficil ah oo kala hormaro 2 rukni oo ficil ah oo kala hormaro imaamkii wuu taagan yahay adi waa rukuucday waa ictidaashay imaamkiina weli wuu taagan yahay waad sii sujuud isagoo imaamkii weli taagan salaadaadii waa burto imaamku lama socotid waxaa kaloo lamida watakhallufu dib marid inaad ka daba martid bihimaa 2dii rukni bikayri cudrin cudurdaar la'aan imaamkii inaad haddana ka daba martid lama ogola ila nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka waxaa loo sameeyey in lagu daysado fa idaa kabbara fakabbiruu allaahu akbar markuu yidhaahdo oo ka baxo isagoo ra'da markuu ku dhawaaqo kadib allahu akbar dheh wa idaa rakaca farkacuu markuu rukuuco ka daba rukuuca hala rukuucinina isagu wuu rukuuco jilbuhu qabsado waa hubsatay ka daba rukuuc markaas rukniga markuu isagu galo ka daba gala ilaa alfaa'u litacqiib fa'du waa isdaba cirbin meeshuu ka baxayaad adigu galaysaa wuu rukuucay istaagii ka soo tag adna rukuuc ka daba gal waay imaamka marka haddii laga dib maro 2 rugni laga dib maro waa taagantaa faatixadii baa akrinaysaa isna sujuuddii buu sii marayaa 2 rugniyaa ku dhaaftay rukuucdii iyo ictidaalka way ku dhaafeen cudurdaar la'aan qiraa'adaaduna ma cusla howl kale aad maskaxdaada meel kala jirtaba imaamkii waad ka furatay salaadaadina waa burtay wa niyatu qatci salaati in la niyeysto wa niyatu niyo qatci salaati salaada goynteeda salaada inaan gooyo ayaa niyeysta waxay kusoo dhacday salaada ka bax salaadeedu way buraysaa isla markaas aan niyeystaba oo madaxa ay niyadda iga soo gasho salaadii waa ka baxa waaya wa niyatu qatci salaati salaada goynteeda oo la niyeysto waa ila salaadu ku ansixi mayso niyad go'an maahane wax kale ku ansixi mayso innamaa likulli imri'in maa nawaa qof kasta wuxuu niyeysto leeyahay haddaad niyeysto salaada inaad goysid goyntii la ku sugnaanaysa wa tacliiqu qatcihaa goynteeda inaad ku xirtid bishayin wax inaad ku xirtid salaadan waan goynaa haddii hebel uu albaab ka soo baxo hebel aad sugaysa inaad raacid rabto hadduu soo baxo horta sii duko laakiin hadduu soo baxo ka bax bis waayo mar haddaad ku xirtid shay allah u naxariiso wa tacliiqu qatcihaa goynteeda inaad ku xirtid bishayin wax inaad ku xirtid wataradudu noqnoqosho labalabayn fii qatcihaa goynteeda inaad ku labalabaysid ma goysaa ma wadaa see yeeshaa haddaa ku labalabaysid allah u naxariisto salaada waxaa la rabaa niya jaazima niyad go'an ayaa lagaa rabaa niyad go'anaa lagaa rabaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam halkaasaan u joogo